gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho ayaa sheegay in ka badan 500 oo meyd ah ay diiwaan galiyeen in la duugay kuwaas oo la tilmaamayo in ay u geeriyoodeen cudurka coronavirus. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo ka hadlay xaaladda dalka ee cudurka halista ah ee coronavirus ee ku sii faafaya caasimada Muqdisho ayaa sheegay in ku dhawaad 500 oo ruux lagu duugay magaalada Muqdisho kuwaas oo la tuunsan yahay in ay u geeriyoodeen cudurka coronavirus. Cumar Finish oo ka hadlayay kulan lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar ayaa waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay wadeen tirakoob ku aadan dadka u dhinta Muqdisho meydadkooda lagu aasay qabuuraha ku yaala caasimada. waxa uu sheegay Cumar Finish in maamulka gobolka loo xil saaray diiwaangelinta dadka ku dhinta Muqdisho ee qabuuraha lagu aaso iyadoona maamulka uu si joogto ah u warbixino u siinayay guddiga qaranka ee ka hortagga cudurka coronavirus. Cumar Finish ayaa sheegay in maalintii shalay oo Jimco ahayd qabuuraha Muqdisho lagu aasay 33 qof halka hal maalin oo kaliya ay diiwaan galiyeen tiradii ugu badneed ee dadka lagu aasay qabuuraha kuwaas oo gaaray 49 qof. isagoo sii hadlayay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayuu tilmaamay in maalintii ugu yareed ee Muqdisho lagu aasay ay ahayd 22 qof. waxa uu carabka ku dhuftay in kowda bishan May dadka Muqdisho ku dhintay ay gaarayaan dad ku dhow 500 oo qof. inay ka soo warbixiyaan tirada meydadka ee maalin walba la geeyo qabuuraha. waxaan soo bilownay inaan gudbino tirada meyd ee qabuuraha la geeyo maalin walba 19 bishii tagtay ilaa caawadan waa gudbinay warbixintaas. waxaan filayaa caawa inay 33 bas masaas may caawa 33 meyd ayaa la soo aasay maanta. tiradii ugu badnayd 32 yes 32 tirada ugu badnayd oo aan gudbino maalin qura waxay ahayd 49. tiradii ugu yareyd ee aan gudbinona waxay ahayd 22. waa 19 ilaa 1 bisha May oo maanta waxay cagacageynaysaa marka 500 ku dhawaad. si kastaba hadalka duqa Muqdisho ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalin ka hor uu wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo uu sheegay in qof kasta oo xilligan dalka ku dhintay ay dawladdu u aqoonsan tahay in uu u dhintay cudurka halista ah ee coronavirus. dawladda Soomaaliya qof kasta oo dhinta maanta waxay u aqoonsantay coronavirus inuu dilo maadaama majority ah. ogaada qof kasta oo dhintay waxaan u aqoonsanahay coronavirus inuu dilo. Cabdikariin Cali Aadan, Goobjoog, Muqdisho.